marti sharafta ka soo qayb gashay shirweynaha dhaqaalaha labaad ee dalka oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka golaha wakiilada mayorka agaasimayaasha guud iyo dhammaan gudoomiyaasha kala duwan ee hay'adaha qaranka saraakiisha qaranka u sarreysa jaamacada iyo safiirada iyo dhammaan aqoonyaha ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga dhammaantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne khudbaddeedu waxay ku saabsanaan doontaa laba qodob oo ah inaan dib u eegno waxaynu soo qabsanay si aynu horumarkeena dhaqaale ee aan tiigsigan ugu xawaaro sare ugu dhaqaajino waxaa habboon inaan dib u milicsano qaabkii dowladdu dalka ugu dejisay inay horumar gaarsiiso inkastoo ay hore u jireen qorshaalka kooban haddana dalku wuxuu samaystay 2012 wixii la oran jiray National Development Plan 1kii baa la samaystay kaasi oo ahaa 5 sanadeed socon doonay 12 ilaa 13 qorshaha horumarka qaranka ee koowaad wuxuu ahaa hindise waddanku leeyahay oo loo qaabeeyay si waafaqsan higsiga qaranka Soomaaliland si loo gaaro mudnaanta horumarinta qaranka kaasoo lagu soo koobay dhammaan mashaariicda ay dowladdeenu mudnaanta u aragto in la hirgeliyo mashaariicdaasi waxaa loo qeybiyey si cadaalada iyadoo oo lagu qeybiyay dhulweynaha Soomaaliland min bari ilaa galbeed maadaama dhaqaalaha ku baxay fulinta mashaariicdaasi horumarneed ay ahaayeen kuwo ka xoog badan waxqabadka dowladda Soomaaliland waxay ku qancisay beesha caalamka inay ka qayb qaadato sanduuq cusub oo Soomaaliland samaysay oo la yiraahdo Somaliland Development Fund SDF markiiba waxaa soo ajiibay maalgelinteedana ka qayb qaatay dowladaha boqortooyada Ingiriiska UK boqortooyada Netherlands Norway iyo Denmark sanduuqaas waxaa gudoomiya dowladda Soomaaliland oo ay wasaaradda qorsheyntu hoggaanka u hayso iyo wasaaradda maaliyaddu waxaana qorshahaas uu soo maray maanta kiisii saddexaad haddaba madaxweyne waxaa intaa uu jiray mashruucaas SDF inoo hirgalay mashaariic waaweyn oo ka furay miisaaniyada sanduuqaasi oo maanta aan hayno inay ahayd in ka badan 97 milyan oo dollar waxaana laga fuliyay 35 mashruuc oo horumarneed oo ka fulinay 25 degmo oo dalka ka mid ah waxaana ka mid ahaa goobaha wax laga fuliyay iyo mashaariicda la fuliyay mashaariicda jidadka gaar ahaan kuwa isku xidhan gobollada iyo degmooyinka oo la oran karo kaabaha ugu muhiimsan kaasi oo dhisnay in ka badan 140 kilomitir oo ah Burco Sheekh iyo Kalabayd Dila iyo Berbera Sheekh biyo balaarinta magaalooyinka waaweyn runtii dadka ugu badan ku nool yihiin sida caasimada dalka Hargeysa iyo magaalada Boorama mashaariicda horumarinta xoolaha ee Banka Aruuri oo lagu sameeyay seero dhameystiran oo leh deyrkiisii ballayga biyaha laga cabeeyay dararkii biyaha iyo shaqaalii wasaaradda xoolaha ay dheertahay welibana xarunta cilmi-baarista xoolaha oo lagu soo daray waxaana jiilaalkii 2022 ku badbaaday xoolo dhan milyan iyo 300 oo kun oo neef ayaa ku badbaaday seeraha mashruuca waxbarashada ee gobolada Sool dugsiga sare ee Laascaanood ee hoyga ah iyo dugsiga Dayaxa ee gobolka Sanaag ee hoyga ah oo sanadkan ay ka soo baxeen dugsiga Dayaxa ardaydii ugu horeysay Soomaaliland dekada Mayd oo runtii noqotay tijaabadii ugu horeysay inaan dalkeena dhisan karno waxa inagu u baahanahay mashruuca caafimaadka ee gobolada Sool iyo Sanaag oo ka dhisnay labada isbitaal ee ugu tayada sareeya marka laga eego xagga qalabka aan dhignay ee mataqaana shaqeynaya sidoo kale waxa ka mid ah mashaariicda dhuldaaqsimeedka mudane madaxweyne mashruuca SDF2 waxaan ku kordhinay sanad dheeraad ah shirkii ugu dambeeyay June waxaan keenay arrin oranaya hal sano dheeraad ah oo ah Afrikaanka inuu sii shaqeeyo kaasi oo ah in dib loo mataqaana dhameystiro dariiqa Burco oo soo gaarsiinay ilaa Sheekh si la berbero 62 kilomitir baan oo dhisan si aan u dhameystirno
4 kilomitir ee noo haray sidoo kale biyo balaarinta magaalada Hargeysa oo runtii magaalada biyuhu ay soo gaareen laakiin qaybintii aan ku jirno iyo taasina waxaan ku darnay sanad biyaha Booramo oo soo furnay madaxweyne asbuucii hore iyadana waxaanu ku ballan qaadnay oo ku darnay biyo balaarin ah in inta maanta ay haystaan oo 9,000 oo mitir kuubiga aan ugu darno ilaa iyo 3,000 oo kale si ay 12,000 oo mitir kuubig ay u noqoto aan qoodi karno biyahaasi 260,000 oo ka mid ah bulshada reer Boorama haddaba dhigaalada qorsheynta qaranka madaxweyne wuxuu marayaa qorshihiisa saddexaad oo aan doonayno inay isla jaan qaadaan mashruuca isna SDF3 oo doonayno ay mataanaha ay yihiin dhaqaalaha haddaba loo qoodiyo qorshaha ugu dambeeya madaxweyne awoodda dowladda iyo dowladaha taageeraba wuu ka xoog badan yahay dabadeedna waxay lagu kaliftay arintaasi inaanu ku casuuno dowlado fara badan oo wada hadal fiican noo socdo waxaana kamid ah dowladda Mareykanka dowladda Finland dowladda Japan dowladda Taiwan iyo dowladda France oo jecelnahay inaan ku casuuno oo ka soo qayb galaan SDF triga u dambeeya ama ay sameystaan mataqaana SDF iyaga gaar ah sidoo kale aanu ku casuuno horumarintaasi ganacsatada qiimaha leh iyo maalgashadayaasha caalamiga ah taas waxay kalifi doontaa madaxweyne inuu dhibada u aasno sanduuq ka weyn kan maanta gacanta ku hayno oo SDF ka weyn oo isagu noqon doona National Development Fund noqon doona kaasi oo aan loo bedeli karo ugu dambeyntina bankiga horumarinta qaranka ka dhigi karno taasoo ay tahay qodobada miisaan kale ee doodeena maanta ay ku saabsan tahay inaynu dhalino afkaarta ay aqliga qiimaha isu keenno sidii aynu 12 sano ka hor aynu talada u keenay mudane madaxweyne anoo ka faa'iideysana fursadaasi waxaanu saarnay wasaaradaha iyaga kala duwan sagaalka ah waxaanu u saarnay guddi runtii qiimo badan leh oo dhalinyar ah aqoon-yahana